سمية كالينتو كوباد ومدلة المدارس القرآنية يكون ليستي سدا أي حكمتي لجنة التحكيم مدلة أي كل واقعي لكن مركين لقول دواقية مدلة كل واقعية وحقا الله موسيقي أو جبر كرير لقصو لفاقي أو ليري لبدين عيا كوا لقول ليستي انت أصلا ونكعود دارنينا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مقعيق واسمي عبد الله علي وحان دكتا مركز كأم القرى الإسلامي وحان أمهد علنا يا إلهي أوغوشان يشرفتا مان تنسيي سيدو كلا وحان أمهد علنا يا معلن كيغو يقرب تاغن الأستاذ بشار حريد فارح أوجودي وتدال فربضن يقبحي وحان ليه جزاك الله خير الجزاء وحاكا لأو أمهد علنا يا لوذي ذوالد ويقصو دذالي iyo dhammaan macallimiinta markaska Ummul Qura waxaan idin leeyahay abaalkiina janna Allah ka dhiga ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى
إليكم وأنتم لا تظلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركب كواد إلهي بمارتاي مهد إسكاله مدن أو مارتاي متيسي إن مارتاي لغو مهد عليو إلهي أيا مارتاي كما حسن قوشاني كي كمارتاي أوين ومارتاي إن سوغارسي مارتاي مانتا تاس أو مارتاي كترجميسة دذلك يجهدك فرح بدن ay maamul iyo macallimiinba ay bixinayaan kuna bixinayaan maaragtay caruurta waxa sidoo kale in la amaano mudan loona mahad celiyo ardaydii musaabaqada maaragtay gashay oo matalaysay markaskeena barakaysan ee Ummul Qura oo runtii kaalmo aad u mug leh ka soo qaaday hagaasi oo ay ugu horeyso 30 juz gabadha Sumaya Cabdullaahi Cali oo runtii lambarkii ugu horeeyay ee kaalinta koowaad ku guuleysatay kana mid ahayd ardaydii ma aragtay soo baxday tasfiyaadkii ugu hordambeeyay walibana ma aragtay noqotay gabadhii kaliya ee aanan ma aragtay wax gambaleel ah ama ma aragtay rujuuc waxba aanan ma aragtay lagu qabsanin kaalinteedana aad ka ma aragtay u cadayd iyo dhammaan ardaydii ma aragtay tartamaysay dhamaantood waxaan leeyahay Allah barakeeyo والد معلمين إمام الله الله بركيه هذه بعد ما رتاي هستهين جوشان إنوسه هيتي رأم القرآن أسه هيتينا وقول تاريخي وحنا إنه قدام بين دون إن شاء الله حفلة دوين ونسوق إيمان الدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا وآخرا إله سبحانه وتعالى بمهضر نسقناتي نسيي جوشاس آدك أوين أو ilmihii aan diyaarinay adaan nahay macallimiintii Ummul Qura annaga iyo waalidiinta oo iskarabsanayna iyo macallimiinta dhammaan ilmahaas oo imtixaankii ka soo hooyay guulo aad u waaweyn dhammaan ardaydu juhdi aad u badan bay bixiyeen kuwii tasfiyaadkii hore ku haray iyo kuwii ku soo baxayba dhammaantood juhdi aad u badan ayay bixiyeen wayna naga farxiyeen adaan nahay macallimiintii iyo waalidiintiiba halkan waxaan rabaa inaan fariin aan ka diro aan u diro macallimiinta reer Ummul Qura iyo waalidiintooda dhammaanba oo runtii juhdi aad u weyn ayaan bixinay oo mataqaana ilmaha ka muuqda marka fariintaan diray waxa weeyaan juhdiga inaan sii laba jibaarno kow lama joogo insha Allah taala ilmaha in aad loo diyaariyo si hadda soo diyaarinay aad wali loo sii laba jibaaro insha Allah taala oo wacdari hadda aad musaabaqooyinka aad ka dhigteen oo kale aad ka dhigtaan iyo ku ka sii weynba waxaana aad uga si khaas aan ugu mahad celinayaa gabadha Sumaya Cabdullaahi Cali iyo waalidkeeda oo runtii aad nooga farxiyay kaalin muglana mataqaana noo gashay oo 30kii lambar 1 noo qaaday hawshaas oo aad ugu wada faraxnay haddaan nahay reer Ummul Qura dhammaan tanno marka gabadhana waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo quraankaas xifdigiisa ay xifdisay إلهي سبحانه وتعالى كوسي سوق معنيه الله فانسيو تي والد كذا إيو معلمين تيد إيو مسلمين تضمان ينفتي دبا أنفعنا الله كردقو ضمان تيد وحن ديه لها أرتدان يدنا فريم بانو فريا دقتا قيبها كل الدول Ummul Qura يدنا سميها الله فيرسد إن شاء الله تعالى سيدا سوكله امتحانات كي وكا كلمة في عن حلقة كان سيدا سميها وكل إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد الحمد لله رب العالمين إلهي بقى محسن أولا وآخرا قوشا وين أو ما أنت نوسوي إلهي مهدي الساب إلهي بقى مهد إسكاله تلا واضح أمات علينا معلمين تي جهد وين يكون بحيان إلا إسكما إمات قوشا أدان دلال جهد وقت أدان لقليلين معلمين Ummul Qura maamulka macallimiinta waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin dadaalkiina laba jibaarka ilaa ma joogteen waxaan rabnaa sanadka dambe Ilaahay doo naf caafimaad cumr haduu nagu gaarsiiyay aruur badan oo number 1 loo galan inaan aragno juhdigan inaan ka aragno waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin salaamayaa dhammaantiin maamulka macallimiinta waalidiinta qof walba meeqaamka iyo munaasibku meesha ku fadhiyaan ku salaamayaa
waxaan ahay waalidiinta ka mid ah oo ilmuhu u dhigtaan mulqura. aad baan u bogaadinayaa, waxaan u mahadcelinayaa ilaahay ii kasay igu sugay in aan meeshaan ilmahayga la soo galo. isagaa ii bayaamiyey anaan waxba ogeyn, laakiin diin iska jecel, maalinba dugsi taga. ilaahay ii kasay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ilaa iyo way iga dhameeyeen, macallimulqura ay iga dhigteen, way iga dhameeyeen. ilaa iyo hadda waan ku qanacsanahay. hal maalin macallin maana isqaban, alxamdulilah baa mahaddaas iska leh. waxa aan ka cabto oo dhiba ilaahay iguma tusin. ilaahay igaga sarreeya cid maanta id tiri dugsigan soo ammaan ama dugsigan maxay too wax ka dhiiba ma jirin. gabadha yartaa laygu yeeray la yiri maxay too quraan bay dhammaysay, inaan u ducayna maadaama aan dariskii nahay, waalidiintii nahay, ku dayasho ay mudan tahay oo annaguna aan ilmahayga heerkaasoo kale la jeclaano, ayadana aan u ducayno baa meeshaa la isugu yimid. anaa jeclaystay inaan qiro dugsigaa. waxaan ku arkay qof kasta oo ilmihiisa diin la jecel, maxay too dugsi ku wareeray. waan jeclaan lahaa inuu meeshaas ilmihiisa la soo tiigsado. taas waa mid aan u diraya dadka diinta jecel. midda kale waxaan u dirayaa Sumayo iyo waalidkeeda, familkeeda. aad baan ugu bogaadinayaa. in waad mahadsan tahay qof la dhaho waa wax iska fudud, laakiin wixii lagu mahadin lahaa inuu isagu la yimaado waa wax dadaal aad u dheer qofkaas ay ka geli karaan. waan dareemi karnaa ilmo la yiri quraanka waa dhameeyay baa wax maaragtay dee qof wuxuu maaragtay uu ku sugnaaday oo waqti badan geliyay baa waa dhameeyay kaliya noqon karta. waa xifdiyey marka waxaa maaragtay qiyaasi kara qofkii dee ilmo dadaal quraan geliyey ama jecel unbaa qiyaasi kara. marka Sumayo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay Sumayo aad baad u mahadsan tahay, waadna diirisay, dadaalka aad muujisay, meesha aad nooga soo baxday, juhdiga diinta aad gelisay. ilaahay ajar iyo xasanaad fara badan ha kaa siiyo, ilaahay ha kugu sugo, ilaahay mid mirihiisa maashaha kaa dhigo. familka dhammaan halkaan baa uga ducaynayaa. ilmihii labaad oo familkaas quraan u xifdiyey inuu yahay bay ii sheegtay hooyadaan haddeer meesha isku aragnay. ilaahay dhammaantood inuu quraanka kugu xifdiyo kaaga dhigaan kuu rajaynayaa, maadaama aad dadaal fara badan bixisay. wax yar baan ka oranayaa Sumayo. xilli dambaa la ii soo sheegay, way mudnayd Sumayo inaan u bixiyo. waxaan leeyahay ilaah baa mahadle maamuuska maanta dhacay, mashxaradiyo sacabku maantay munaasib tahay. milgiya sharaf baa idloobo macaan badnaa, markaska sharaftiisa macaankiisa waa kana oo maamul loo wada riyaaqaan markhaati kacay. macallimiin wada mas-uulaan markhaati kacay. meeqaam lagu doortay muftiya oo macnona la hubo, oo mowlahan idiin bariyey maaligay idin daa. aamiin noo raacshay inuu eebba naga aqbalo. inanta qalanjabisay in yar baan ka oranayaa, allah yaa kuu dooray ahla quraan inaad tihiin, as-aaskii diinta udubdhaxaadkii inaad tihiin, ehelkii diinta indheheenni aad tihiin, ardaydii umulqoro tihiin, waa astaan qurxoon. Sumayo waan kuu duceeyey allow ku daa, oo waadna diirisay dadaalkaagii ducaysaneey. ilaahay ha ku daaya tii diinta fidisay noqo. Sumayo mid la doortay oo aan daciifin noqo, oo diinta rabbi waa u dadaashay allow ku daa. Sumayo duco waarid baan dacalka kuugu xiray, dadnimo badan weeye sidii daysan hooyadeed. oo aabbe dun wanaagsan oo daacadaa ku dhalay, oo hooyadii ran dadaalkeedii waan hayaa. macallimiin kuu dadaashaa deeq u heshay, oo maamul kuu duuban darajaysan baad heshaye. Sumayo midna deeqday oo dirana ohow. ilaahay ha u aqbala gabadhaas, diinteedana allaha ku sugo. intaas uun bayna sugo. asalaamu calaykum waraxmatullah. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وما بعد، أنا كمد والدينتا أردادا لغتا دكسيغان مركز كان القرى. وحان بوغادين إياه كبدا Sumayo kaalinta ay u soo hoyday dugsigan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryayaa inuu barakeeyo, kuna sugo quraanka, kana yeelo kuwii yani waalidiinteeda ku anfacda adduunyo iyo aakhiro. waxaan kaloo u mahadcelinayaa
macallimiintii juhdiga ku bixiyey oo ugu horeeyo macallin Bishaar iyo macallimiinta kaleba waxaan ilaahay ugu rajaynayaa inay yani dadaalkooda intaa ay ka sii badiyaan ayagana sidoo kalena waalidiinta ay sidoo kale dadaal badan ayagana ay ku bixiyaan si ay ilmihii ay u noqdaan kuwa miro dhala oo wax fiican ay ka soo baxaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا ودنا يسقناتي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. إلهي سبحانه وتعالى أيامكم هذينينا كلن كان قيمها بدن وحان ما أنت عن سجوني معني إن كفر حنو قبل سمية عبد الله ومدرسة أم القرى لمبرون أسوق شيء ترتنكي الوقت قبتي مسابقات كي الوقت قبتي مضالة المدارس وسند لها سند رمضان كل قبل جري رون أنتي أد أي نو فرحت قلنا يسا إن لو ذاقنو أنا جو كالصعدة مدرسة المعارج ونيروبي كتالو معلم أستاذ بشار حريد وصاحبك جزاه الله خيرا وأني رنتي أد أددا البدن أم القرى أنا مال في عن أي سو جارسي رنتي قبل هذا وحوي شيء إني لمبر كواد أي شيء صدق كجوس ما شاء الله ووح إلهي سبحانه وتعالى لوما هذيو آد نو فرحت قلنا أيو مدرسة إلهي خير وحنا قرجينا خير فرب بدن يعني هراء الصعوته ودميين ترتمى وين أي صوص عضو إن شاء الله كل جوليستا ومقع في عن يلمر في عن ماموس في عن وكان أي رجينا والدين الله بركة قبل لسان ود ذلك معلمين تسدوا كلا جزاهم الله خيرا رنانتي وآدي وأذكت هاي صدق كجزء عن جلايو وأدريم كرتان أديك جهدك وبحنايو إلهي سبحانه وتعالى وأدي وقت في عن 10 أواخر وقتي بركة سنة إلهي كأدي مدرسة الله بركة وهذا كلا غيب قادنا فرحدا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اللهم لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. runtii maanta oo 29 Ramadaan 1447 hijrada waxaa runtii farxad weyn waan la koobi karin noo in ay gabadheena ardayadeena Sumaya Cabdalla ay raqam fiican iyo kaalinta koowaad kaga soo guuleysay tartankii laga qabtay Madalatul Madaaris Al-Quraaniya oo lagu dhawaaqay axadii aan soo dhaafnay masaajidka BBS Mall halkaasna jiitada looga dhawaaqay ay ku guuleysatay raqamka koowaad oo quraanka dhan iyo dhammaan ardaydii mushaarakaysay ee markaska oo nin walba runtii wacdaro fiican uu ka soo dhigay markii la tartamo dee waa la kala badinayaa orod sama waa la kala badinayaa marka ardayda kuwii raqamyada kusoo wala guuleystay sida ninka la yiraahdo muxuu ahaa Axmed iyo Xanaan oo iyaguna kaalmo fiican ka soo guuliyay iyo dhammaan ardaydii kale wala dadaalay iyaguna nasiibku ka heeliyay kulligood insha Allah taala waxaan leenahay waa mahadsantiin dhammaantii waa mahadsantiin intii aan ardayda kale ka mushaarakeynay ee jeclaa inay mushaarakeeyaan musaabaqada iyaguna diyaarka waa marar kale mushaarakeynayaan iyaguna waa mahadsantiin soo dadaalay insha Allah taala macallimiintii ku dadaalay oo ardaydaas soo wala saaray oo al-ustaad Bishaar iyo ustaad Maxamuud oo midkeedii iyo bidixii kala taagan ay ugu horeeyaan iyo tiimkii la shaqeynayay macallimiintii dhammaan la wala shaqeynaysayna idinkan runtii juhdi baad bixiseen inagana shukran baan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aadayni
ni waafajiyo wala shaqaynta iyo isgarabsiga wanaagsan ee wada madrasada aad ku wadaan. waalidiinta iyaguna si wanaagsan madrasada ula wala shaqeeya ee caruurta soo diyaariya ee macallimiinta iyaguna la shaqeeya iyaguna kulligii waa mahadsantihiin. hadalkayga waxaan ku soo gunaanudayaa musaabaqadii Ramadaan bilowgeeda la qabtay natiijadeediina maalinka Axadda lagu dhawaaqay qaybteedii u dambeeyay ee tasfiyaadka ahayd la isku soo haray ay gudoominayeen ama lajnatu taxkiim ay ka ahaayeen الأخ محمود مركوني يا أخ عبد الله عبد الرزاق يا أستاذ عبد الرزاق وأنا نقوم بدنا أنا أقولها هين أيقونا دينتا أي مسابقة السوداء دهيين هذه أي وجو وناقصين أو ما تسيين وقلنا ما هاد علينا يا نتائج كي أي قارينا أن نقول كان عسلنا هاي أو أن نقول كالصورنا هاي كليا وحنكو يردار لها مسابقة ده ما ننكي وجودا بيسي أحد أحد مركي لو دواقيي si aan yar jeclaysanin oo moodadu xogaa yara musuqa inuu ku jiro ayaa loogu dhawaaqay taasoo ay mas'uuliyadeeda ay iska lahayd madalatul madaaris iyo ciddii markaa la shaqaynaysay oo ay beri ka ahaayeen nimanka quraada ah ee caruurta soo kala saaray ee aan magacaabay midaas oo ahayd Sumaya kaalinta koobaad oo madalatul madaaris alquraaniya ayay ku guuleysatay sida ay xukuntay lajnatu taxkiim madaladuna ay ku dhawaaqday. laakiin markii lagu dhawaaqay madaladu ku dhawaaqay waxoogaa la musuqay oo gabar kale lagu soo lifaaqay oo la yiri labadiina ayaa ku wala guuleysatay intaasna waanu ka cudur daaranaynaa insha Allah taala sidaan damacsanahay xaflad weyn oo ugu dabaaldegi doono Sumayo iyo guusha ay soo haysay iyo dhammaan ardaydii ka soo wala qayb qaadatay musaabaqadii madalatu madaaris ayaynu qaban doonaa la qurux badan oo aan ku dabaaldegno si fiican ugu dabaaldegno iyo xaflad weyn ayaan soo qaabin doonaa insha Allah taala intaasna waad naga warsugi doontaan insha Allah taala markii aynu dib ugu soo noqono markaska caruurta dib ugu soo noqdaan ayaan xafladda ayadana aan qaban doonaa sidaas iyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.